بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم waxaynu bilaabaynaa insha Allah qaybtii afraad casharradeena taxanaha ahaa ee aynu kaga hadlaynay qabuuraha iyo shirkiyaadka ka dhaca iyo qasaa'idka iyo halka waxa laga akhriyo iyo akhdaa'da noocaasa inagoo dadka muslimiinta ah ee walaalaha ah ee caamada u badan iyo kooxda qasiidooyinkan ku baarata oo ku wareerisay waad aragteen qofka caamada ah hadduu muddo bila ah ama sannada ah uu la socdo dadkan suufiyada ah oo qasiirada iyo heelladaas iyo durbaanka iyo qamta iyo biraha iyo jugta iyo macdaas qofku waa wareera waynu aragnay kuwa badan oo khalkhalay oo maskaxdii furfuratay oo iska damdam leh oo durbaanka antumaya rag iyo dumarba oo meelaha uu maaragtay qabuuraha agtaag taagan oo xigmad kale iyo nolol kale iyo shaqo kale iyo midna aan lahayn waynu aragnay marka qofka xagee looga yimi qofka waxa looga yimi waxa kan maskaxdiisa lagu qaadayo oo lagu dhibaayo waxa kanu shaqadii sharciga ahayd maaha soo ma jeedid waxaynu soo joognay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam oo lahaa ama aayadda qur-aankeedu inuu ku damaysay wa ana almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axadda ilaahay subxaanahu wa tacaala in toos loo caabudo oo cibaadadiisa cidna aan lala wadaajin aan soo qaadanno xadiiska ibnu cabbaas radia allahu tacaala canhumaa wuxuu yidhi kuntu khalfan rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga ayaan gadaalkiisa saaraa gaadiidkii uu saaraa maalin maalmaha ka mid ah markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi yaa ghulaam xadiis saxiixa weeye waad garanaysaan badankiinnu dadka muslimiinta ah waa yaqaanin badankoodu yaa ghulaam wiilkow ghulaam waa wiil yaroo dhallinyaro ah oo aan gaar ahayn inni ucallimuka kelimaad baan ku baraya sax kelimaadkii kow waa kelimaad caqiidaah oo wanaagsan oo dahabiya qad dahaba in lagu qoro istaahila ixfid allaha yaxfadka ilaahay xifdi ilaahay ha ku xifdiye macnaheedu waxaa weeye wixii ilaahay kuu diray ha lagaa helo ilaahayna wuxuu kuu ballanqaaday iyo ka badanba waad ka helaysaa ixfid illaha tajidhu tujaahak iyadii buu sii macnaynayaayo ilaahay xifdi wuxuu kuu dirayna ha lagaa helo adiguna muraadkaaga oo dhan iridaada ka helaysaa ilaahay sida uu ina amray haddaynu u caabudno khayrkeenna oo dhan wajahaddeenna ka heli lahayn weeye idaa sa'alta markaa baryaysid oo baryo u baahatid oo baahiyo ku qabato noocay doonto ha noqotee fas'al illaah ilaah waxaa ii furuday adiga awoode leh asbaabta lagu helana la imow waida stacanta fastacin billaah ilaahay markaad kaalmo weydiisanaysidna ilaahay kaalmo weydiiso isticaanada ilaahay subxaana wa tacaala kaalmayso muraadkaaga oo dhan ilaahay waa kuu fududaynaya waa kuu sahlaya tartiibta sharciga ahayd baa maraysaa waclam waxaad ogaataa wiilow ana alummata ummaddu low ijtamacat hadday isu tagto calaa an yanfacuuka bishay-in inay wax kuga anfacaan oo wax ku taraan hadday isugu tagaan ummaddu siday u dhan yihiin lam yanfacuuka ilaa bishayin qad katabahu allaahu lak wax ilaahay kuu qoray oo loox maxfuud kuugu jiray oo ayaantii 4 bilood uurka hooyada aa ku jidhay laguu meeleeyey arrintaasay wax ku taraayaan wax kale oo aan laguu qorin kuma siin karaan oo bani aadanka waxaan habeen iyo maalin ina siinayaan oo ilaa waa wixii hore inoo ku qoraa asbaabtii baa la timi iyaguna asbaabtii bay la yimaadeen ilaahay qadartiisana waa waafaqeen adigu waad ku soo hoyatay mase waad weydiisatay iyaguna waa ku siiyeen la sababood isdhaafay weeye biqadaa'illaahi wa qadarihina adna waa waafaqday iyaguna waa waafaqeen dayib walow ijtamacuu dadku hadday kulmaan calaa an yaduruuka inay ku dhibaan hadday dadku isugu tagaan bishayin shay inay kugu dhibaan lam yaduruuka ilaa bishayin qad katabahu allaahu calayk ilaahay shay uu kuu qoray qolaa shidhay go'aan baa laguu qaatay in lagu dhibaho lagu dhibaateeya baa lagu tashaday waxa ay ku gaarsiinayeen waa wixii ilaahay horey kuugu qoray saas weeye asbaabteeda ma adaa lahaayoo dhib hore geystay mase iyagaa hadda kugu bilaabay intaba waa suuragal maxaa yeele ruficat alaqlaamu aqlaamtii waa la kor qaaday suxuftii iyo maaragtay khadkiina waa qalalay ahlan wasahlan warkaas meel buu kuu yaal ma ujeedaa
halkaa marka waxaad arkaysaa xadiiskaas wuxuu caddaynayaa ilaahay subxaanahu wa tacaalaa inaadan marna ka madax bannaanayn, ilaahayna kaalmayso, ilaahayna isticaano weydiiso, ilaahayna xifdi, ilaahayna ka xishood, ilaahayna bari, ilaahayna la soco, ilaahayna maaragtay gacan weydiiso, ilaahay baa ku siinaya. ummaddana sharkoodana ilaahay ka magan gal, wax allaale waxay ku yeelaan iyo waxay ku anfacaanna wixii ilaahay horey kuugu meeleeyey oo kuu qoray weeye. ma ujeedda waxaa marka layna ka rabaa ikhlaasu alcibaadati lilaahi waxda, ilaahay cibaadada in loo khaalis yeelo oo cidna aan lala wadaajin oo cidna ayan lalahayn. wixii cibaado ah ilaahay subxaana wa tacaala baa iska leh. baryada goorta gacmaha taagaysid ilaahay baa iska leh. goortaa waxaa odhanaysaa rabbanaa aatinaa, ilaahuna sii fi dunyaa xasana wa fi laakhirati xasana, owlaadi sii oo nolol wanaagsani sii oo dhaqaalo khayri sii oo caafimaadi sii oo murugada iga saar, hebel igu sii iyo hebel igu sii, midna ohan maysa. afkaaga ka dhowra waxaas. ma ujeeddaa ma aha marka macnaheedu ina ambiyadii inkidhay oo diidday oo ka hor timi oo ku gaalowday ma aha. masalada tan waa sidaa, soo uma jeedid. fakamaa anna salaad, sida salaada ayan u bannaanayn an takuuna lirasuulin ow weliyin, fakadalika laa yudcaa alrasuulu aw ilweliyu min duuni illah. salaada aad tukanaysid miyay bannaan tahay in ilaahay qayrkii subxaanahu wa tacaalaa loo tukado? maya. sakada aad bixinaysid, xajkaaga, cibaaraadkaaga kale weli miyaa leh, nebi miyaa leh, malag miyaa leh, cid kale miyaa leh? maya. saasoo kale ducadaaduna waa cibaaro cibaaraadka ilaahay ka mida, weli iyo malag iyo nebi iyo cid kale toonna male wey. ma ujeeddaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nucmaan ibnu bashiir sida uu warinayo wuxuu yidhi nebiga ayaan maqlay isagoo le adducaau huwa alcibaada, adducaa'u huwa alcibaada. halday hadda si gaara loo qeexay. xadiisku waa xadiis saxiixa, saxiixuu ku jiraa. ducadu waa cibaado. meesha mushkiladdu ka dhacdo oo dhibto ay ka quruntana waa ducada weeye. oo dadkii waxaa looga maaranayahay ilaahow hebel jaahiisa, ilaahow ducada cindallaahi ka aqbal, oo cinda awliya ka aqbal, oo cinda almalaa'ika ka aqbal, oo cindanaa ka aqbal, oo cindaka ka aqbal. soo ducadeenu saa ma ahaan jirin. dabcan ninkii garanaya waa garanaya. ma ujeeddaa marka afarna waa qaldan tahay, helna waa saxan yahay. ilaahu ducada agtaada ka aqbal, adigaan ku baryaynay, taasaa saxan. cindallaahi ka aqbal, oo cinda awliya, awliyada la kaasho, oo cinda nebi, oo cinda almalaa'ika, malaa'igta la kaasho, oo fadligooda iyo wanaagooda iyo karaamadooda iyo khayrkoodaan kugu baryaynaa wey macnaheeda. ila af soomaaliga yaa lagu xadaaya oo loo qarinaya. ma ujeeddaa nebigu calayhi salaatu wasalaam aayaddaa xadiiskaa markuu sheegay kadib wuxuu yidhi waqaala rabbukum adcuunii astajib lakum. ibarya, rabbigiin wuxuu idin yidhi ibarya, udcuunii astajib lakum. ibarya aan idinka ajiibe, ibarya aan idinka ajiibe. jumladaa u fiirso si fiican, maskaxda iyo dhegaha u sii. udcuunii astajib lakum. ibarya aan idinka ajiibe. ilaahay suu inoo jecel yahay oo inoo jahayey oo sharciga inoo ku qeexay waa aayad qur'aana. ma ujeeddaa nebiga carabkiisaa laynoo soo mariyey, kitaabkeenna kariimka abay ku taal. ilaahay waa ina tuugaya, war addoommaraydow ibarya anaa idin ajiibaaye. ka warran marka ku baryi maayo adigoo kuma baryi karehe ciddaasaan kugu baryaaye wax igu sii haddaa wax siinaysid. sow gaf ilaahay kuma aha. sowse qofka muslimka ah gaf kuma aha hadalkaas. ma ujeeddaa qaybtaan damaa ka fahmaysaa ina aladiina yastakbiruuna can cibaadatii, kuwa cibaadadayda iska weyneeya oo aan aniga toos ii baryin, oo ama toos uga tegay cibaadadii oo dhan iyo baryadii la baryadaa laga hadlaayay. ma ujeeddaa iyo kuwa cid kale igu barya oo igu weydiista, sayadkhuluuna jahannama daakhiriin. war dadka muslimka ah oo walaalka ahow, jahannama sidaynaan u gelin ilaahay inama geeyo, allahna ka badbaadiye. war baryada ilaahay cid aa ku baryaysid ka da', oo ilaahay toos u bari, oo ilaahay weydiiso, oo ilaahay subxaana wa tacala cidna ha ku lamaanin. oo awliyadu waa awliyo oo meesheeday joogtaa, oo khayrkeeda allaha siiyo, oo barakadeeday leedahay, oo wanaaggeeday leedahay, oo ilaahay buu ninku caabuday, oo ilaahay buu ku xiraa. laakiin cibaadada adiyo rabbi ka dhaxaysa ma soo galo,
oo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma soo galo meelna kama soo galo cibaadada ayuu rabbi kaa dhexaysa haddii waxaa dhici kadha inuu yidhaahdo hadda nebiga haddaan rumaysnayn ma xaggee aadaya oo maxaan ku hadli karaa nebiga calayhi salaatu wasalaam adoo rumaysan oo raacay baadan haddana ilaahay ku baryi karin oo masalada baryada iyo raacistu waa kala laba baab shaqo iskuma leh dadka marka baba'da iyo qaladaadka iyo ma'da badan iyo takara dhabashada iyo qamqamta iyo qaylada iyo waawaada iyo xagga dhig si degan oo habiya oo wanaagsan oo niqaash ku jiro oo aad iyo aad u degan saa dadka ula hadal oo asluubkaa mar oo qaabkaa mar oo dadka sidaa yeel ma ujeedaa nebi diidow dilaac sacab iyo durbaan iyo qaylo iyo sawd laysla helo iyo jacjac iyo jugjug waxaas meesha ka baxday ma ujeedaa nebiga calayhi salaatu wasalaam lama diidin oo raacistiisu waa muqadas oo waa waajib oo raacistiisa la'aanteed xarig islaan meesha kama xirmo laakiin baabka baryada marka la joogo hadalka aan waa ku celcelinaya baabka baryada marka la joogo nebigu baryada ma leh salawaatullahi wasalaamu calayh in ilaahay xurmeeyey oo karaameeyana layskuma hayo qofkii inkiraana diin ma haysto laakiin baabka baryada markay joogto baryada ma leh ilaahow keliyaa la odhanaya dadka caamada ahoo fahma qasiidaa laydiin qaadaya madaxaa isla wada dhacaysaan waa wada marqaamaysaan goortaa wada ruxantaan baa goortaa wixii raba laydiin sheegaya dad baa la duraaya ummad baa nebigay diiday bidcaa halkaa ka timi halkaasay ahayd war innagaa qaadi jiray oo dadku wada marqaami jireen oo madaxa isla dhici jireen oo ma ujeedaayey halkaas akhriyi jiray oo intaasoo qasiido isu daba dhigi jiray goortaa kadib hal xabo inaan macnayno kontrabaan bay ahayd laakiin aayadda qur-aanka markii naloo diro ama iyada ay timaaddo waa la macnaynaya amaa qasiidada lama macnayn karo adiga caqli ma waadan lahayn arrintaasee ku dhici kadha seese ku yeeli kadhaa seese ku ahaan kadhaa qur-aankii waa la macnaynaya xadiiskii waa la macnaynaya laakiin qasiidada lama macnayn karo maxaa yeele haddii la macnayo ceebo badan baa soo baxaya oo dadkii baa ka didaaya oo calaamatu su-aal baa imanaysa oo waa laysweydiinaya ma ujeedaa walaalayaalow saas weeye arrintu insha allahu tacaala ma ujeedaan ilaahay subxaana wa tacaala waa kan qur-aankiisa kariimkaa ku leh waidaa sa'alaka cibaadii hadday ku weydiiyaan rasuulka ilaahayow addoommadaydu cannii hadday ikaa weydiiyaan fa innii qariibun ilaah dhow baan ahay addoommada kama dheeri ujiibu waxaan ajiibaa dacwata addaaci kani baryaaya baryadiisa idaa dacaani markuu i baryo falyastajiibuu lii aniga hay baryeen oo hay ajiibeen oo hay raaceen oo manhajkayga ha ku sugnaadeen waliyu'minuu bii aniga hay rumeeyeen lacallahum yarshuduuna inay hanuunayaan ayaa xaqiiqa goorta ilaah baan kugu dhaariyey walaalkayga gacalka aanu nahayow oo muslimka ah oo soomaaliyeedow aan isfahmaynow aayadda aayad ka qiimo badan iyo macnaha macno ka macaan qalbigaaga ma ka dareemaysaa waidaa sa'alaka rasuulka ilaahayow hadday ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu hadday ikaa weydiiyaan waxaad ku tidhaahdaa oo u sheegtaa fa innii qariibun anigu ilaah dhow baana alle saasuu inoo ku dhow yahay alle saasuu mujiibu dacwaad inoo ku yahay alle saasuu inoo dhowraaya alle saasuu raalli ku yahay alle saasuu inoo diray alle saasuu inoo ku siinaya alle saasuu baryada inoo ku nadaamiyey maxaan marka ka doonaynaa meel kale maxaa rabbi inoo ku fillaan waayey maxaa ilaahay baryadiisa aynu inoo ku fillaan weyday maxaynu waasto iyo meel kale iyo cid kale u soo marmaraynaa walaalayaalow ilaahay baryadiisa marka ay joogto intaa ka baxdid qasiidooyinka iyo meelaha la soo maro iyo ilaahow hebel wax nagu sii ma ujeedaa si tartiibaa lagu gelinaya si tartiiba oo aadan fahmayn baa lagu gelisiinaya wixii oo lagugu sheegaya marka ilaahay baryadiisa kaa qaldami mayso waa kan ku abuuray waa kan qabka kuu nooleeyey uurka hooyada waa kan xabadkeeda caanaha kuu saaray waa kan ku soo maradhaariyey waa kan ku soo barbaariyey waa kan ku soo dhaqaalayey waa kan heerkan ku soo gaarsiiyey waa kan sidaa kuugu turay waa kan intaasoo xidid 360 xidid ee jirkaaga yeelay waa kan intaas oo ma isku kaa rakibay waa kan dawladda kaamilka ah guuraysa kaa dhigay waa kan sidaa kuu barakeeyey kuu barwaaqeeyey waa kan sidaa kuu dhowray waa kan sidaa hantida kuugu yeelay waa kan sidaa adduunyadii boqorkaaga dhigay ilaahay ha u gefin
وبريديس وعباده عبادة عدنا هو صومري إلهي توس أبري ساسة ينوطها إن شاء الله. وإذا سألك عبادي هدي الضمة دي إلهي رسولك إلهي والضمة دي كاوي ديان فإني قريب أنا قوادوهي أجيب وأنا أجيب دعوة الداعي كان بريا بريديس أدعو إلهي بري إلهي وكو أجيب دعوة الداعي كلمة دابلو فيرسو إذا دعاني مركي بريان وأن بري وأنا أجيب إيه فليستجيبوا لي أنا هاي بريان وليؤمنوا بي هاي الرميان وحا حقيقة لعلهم يرشدون إني مركا هنونان ونبط قلان وعافمادان وبركوبان وبرواقوبان ومحوها تمرات كودي هلان وخير إيو خيرين إيو النعمة إلي كسوغنادان وي ساس وي إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. عشر كان إن شاء الله تعالى وعشر كأفراد. عشر هذه نتحنها ها يكساب سنة موضوع قسائدك يو سيارة القبور يو موضوع أسهل كاسو أخطاء بدن إنك جدو إنتان كجاري إنه مرك عشر كينا الشناد إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.